وحان كتبنا هذا سنيه الخبر ومدان ويرنا كقتلنا هكذي بني سبحان وشينا إلي أنت الكود دين تودا قانونا kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hiigi iyo laabta aad ku hayseen ee haldoorka hirsamo iyo haluuninta dhalinyarada وحان كتبنا هذا سنيه الخبر ومدان ويرنا كقتلنا هكذي بني سبحان وشينا إلي أنت الكود دين تودا قانونا نكون فرما نبدأ هرسمو نريد قانونيا هكذا سكواجه إلي تمام كفوريا هالدوركا هيسمو هدي وليغا ديغيسو هالدوركا هيسمو barnaamijkeenna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hadba xubno aad u xiiso badan waxa uuna socon doonaa barnaamijkeenna haldoorka hirsamo iyo hanuuninta dhalinta 10 daqiiqo ee ina soo aadan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xubno kala duwan ay ka mid tahay xubinta xanaynoo noqon doonto ay ka mid tahay doorka dhalinyarada ay ku leedahay bulshada dhexdeeda iyo qisooyin muujinayo cibir qaadasho ayaan barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa iyo waxyaabo kale oo aan idinka qarinayno waa mar kale iyo barnaamijkeena haldoorka hirsamo iyo hanuuninta dhalinyarada شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربته كسبته كل علم من أصوله طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى لاجل حلمه ينوله على الإيمان والتقوى ربته كسبت كل علم من أصوله طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى لاجل حلمه ينوله شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم waa tahay dhegeystayaal barnaamijkeena ayaan hore u sii gudagalaynaa haldoorka hirsamo iyo hanuuninta dhalinyarada waxaynu barnaamijkeena ku bilaabi doonaa qiso la magac baxday waxay ii dhashay 7 wiil iyo 4 gabdhood haddaba qisada ayaynu bilaabi doonaa الوطن عزوة شبابه نشامة والزمن صالح وجوله نجاحات وبطولات sidoo kaleeto qisadani waxaa inooga sheekeyn doono mid ka mid ah qoraayada caanka ee wax ku qoraa in websaydyada caanka hadalkiisana waxa uu ku bilaabay waxaan ka imid jaamacadda Africa University waa goor galab ah waxaan ka soo lugeeyay jaamacadda kadibna waxaa soo maray jidka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho xabaar markaan hay ayaan isdhahay kuna soo mehradan xooga waxa ii yimid kabalyeerigii waxa uu igu dhahay maxaan kuu keenaa day dalabka waxaan ku dhahay waad mahadsan tahay walaal waan soomanahay intaas markaan idhi ayuu iga tagay waxaa agteyda fadhiyay dhowr oday oo sheeko ku haystay mid ka mid ah ayaa soo kacay waxa uu soo qaatay kursi dheegaya ayuu soo fariistay waa uu islaamay waan ka qaaday waxa uu yidhi ma sooman tahay haa baan dhahay markaas ayuu ilmeeyey ani waan maqlay waxaan isdhahay ninka maxaa ku dhacay ma xanuunsan yahay mise arrimo kale ayuu wataa su'aal buuba ku weydiiyey adna waad ugu jawaabtay maxay ka walaxtay tani cabbaar wuu ilmeeyey waxaan ku yidhi adeer maxaa ku helay ma bad qabtaa ayaan dhahay waxa uu yidhi haa waan bad qabaa markaas ayaan idhi maxaa kugu dhacay adeer oo la ilmeynaysaa cabbaar ayuu
iga aamusay kadib ayuu idhahay adeer waxaan ka qowmameynaya waqtigaygii soo maray oo aan dayacay waagan dhalinta ahaa waxaan waqtigayga ku qaatay tumasho cibaado alle ayaan ka tegay waxaan ahaa mid 24 saac ku jira waxaan adduun iyo aakhiro toona faa'iido u lahayn dadkaygu waxay yiraahdeen war alle ka baq balse waxaan ahaa nin adduunyo waxaan saas ku jiraaba anoo 45 sano tumasho ku jira xalaal iyo xaaraanna isku kaymid tahay xumaan iyo fisqi bartamaha ugu jira sidoo kalena aanan badareensanaynba in xisaabtan iga dambeeya iyo in kale habeenada kamid ah ayaa waxaa mid meel carwo ah oo lagu gado dharka waxaa joogay meeshaas dad aad u fara badan balse indhahaygu waxay qabteen hal qof oo qura waxaana niyadiiskiiri qoftaas waa in aad caawa ama biri dambe aad la tumataa Allahu akbar waxaan soo aaday gabadhii xaggeedii waan la hadlay way isoo eegtay balse ilama hadlin misna waan la hadlay sidoo kale ayay isoo eegtay mar saddexaad baan la hadlay way iga aamustay waan carooday waxaan isiri naamaad nala hadashid waxay igu tiri walaal adoo kale lama hadlo waayo indhahaagu waxay u eegeen kuwa alle naxariistiisii ka dheereeyay sujuudaaduna waxaan u malaynayaa in aadanba dhulka dhigin afkaagana weligiis laguma xusin xuska alle gacmahaagana weligaa wax wanaagsan kuma aadan qaban lugahaagana weligaa masjid kuma aadan aadin waxay intaas ii sii raacisay nin aan allaba raali gelin seen ula hadlaa شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربتوا كسبتوا كل علم من أصوله طريق أحلامكم يبدأ dhageystayaal halkaas haddaan kaga gudubno qisadaasi aad ku xiisaha badan balse dhamaystirkeeda barnaamijyadeena kaleeto ee gudaha barnaamijkan hal door kirsama ayaad ku maqli doontaan inkastoo barnaamijka loogu talagalay kaliya inuu 10 daqiiqo baxo markana waxaad ku soo dhawaataan qayb kamida taxanihii dhigayay doorka dhalinyarada ay ku leedahay bulshada dhexdeeda walina waxa inoo socdo weerihii halgame dabcan ayaad ku soo dhawaataan qaybteeda koowaad شرفت بلدكم بالمحافل رفعت اسمها في كل دولة شرفت بلدكم بالمحافل رفعت اسمها dhalinyarnimadu شرفت بلدكم بالمحافل رفعت اسمها في كل دولة dhalinyarnimadu waa xilliga ugu adag ee qofka bini'aadamka ah soo mara xilligaasi qofku wuxuu kulansadaa fursado uusan mar kale helinin waxay yihiin tamarta caafimaadka iyo firaaqo badan culimada caafimaadku waxay tilmaameen hormoonada dabiiciga ee uu leeyahay qofka dhalinyarada ah inay xilligaasi aad u badan yihiin taasina ay qayb ka qaadanayso firfircoonida dheeriga haddaba waxaa habboon in aan tilmaanno haddii aynu ka hadlayno dhalinyarnimada mawduucyay ka mid yihiin waqtiga iyo sida looga faa'iidaysan karo abwaankii weynaa ee Cismaan Yuusuf Keenadiid ayaa waxa uu ku leeyahay mar uu gabay kaga hadlayay waqtiga adduunyadu cawliya maalin ways cirbinayaane cabaarkii yar oo ka taga waa cad ka go'ane حلمه ينوله شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم مستقبل بلدنا شباب اليوم مستقبل بلدنا نشامة والوطن عزوة شبابه نشامة والزمن صوله وجهله نجاحة بطولات وتفوق نقول الله يحميكم نقول بلدكم بالمحافل رفعت اسمها في كل دولة waa tahay dhegeystayaashan waxaan idinka raali gelinaynaa qaybtii hadda oo aan kaga waramaynay
maxay ahayd doorka dhalinyarada ay ku leedahay bulshada dhexdeeda oo ay tahana inoo noqon doonto balse qaybtan oo dhammaystiran barnaamijyadeena kaleeto ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaana naga dhacay waqtigii barnaamijkan ugu talagalnay 10 daqiiqo oo weliba sakana aan ku sii darno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo